dabaaldegaasi wuxuu gabagabo u ahaa ciyaaraha kubadda cagta ee Somali Week ee Toronto oo sanadkii 35aad uu qabanqaabiyay ururka Today oo ka dhisan magaalada Toronto. Kooxaha Seattle Washington oo Mareykanka ka socotay iyo Mother and Child Welfare Organization oo loo soo gaabiyo MACWO ayaa isugu yimid finalka, waxayna guushu raacday kooxda Seattle Washington ee dalka Mareykanka. Labada koox ayaa soo bandhigay ciyaar aad u wanaagsan, waana markii ugu horeysay oo ay tartanka ka soo qayb galaan. Kooxda MACWO oo ay hogaaminayso Nicimo Xareed oo ah haweeneydii ugu horeysay ee hogaamisa koox ka qayb gasha Somali Week ayaa kooxdeedu waxay soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsan oo ay ammaaneen taageerayaasha iyo dadkii u daawasho tagay tartanka. Kooxda Seattle Washington ayaa dhankooda muujiyay ciyaar wanaagsan si lamid ah kooxda MACWO, waxayna xuseen in inkastoo ciyaartu ay ku dhamaatay barbaro ay haddana u suura gashay in goolka saddexaad ay dhaliyaan waqtiga dheeriga ah ee lagu daray ciyaarta, taasoo ku soo idlaatay 3-2. waa kan mid ka mid ah ciyaartooyda kooxda Seattle Washington oo tilmaamaya in ciyaartu ay adkayd, la isla gaaray waqti dheeri ah in lagu daro, balse ay sii wadeen dadaalkooda taasoo u suura gelisay inay koobka ku guuleystaan. We still did it. We fought to the last minute. This game went to overtime. Some of us were beat. Our legs were tired, but we continued on. We continued running all for the team. I love my team, man. Alhamdulillah. Madaxda ururka Today ee qabanqaabiya ciyaaraha Somali Week ayaa xusay in muhiimaddu ugu weyn ay tahay sidii dhalinyaradu ay isku baran lahaayeen isla markaana looga badbaadin lahaa inay ku dhacaan falalka aan wanaagsanayn. Sidoo kale tartanka waxaa isku arkaa ciyaartooydii hore ee bariisamaadkii ka ciyaari jiray kooxaha heerka koowaad ee Soomaaliya iyo xulkii qaranka ee Soomaaliya, waana meel ay isugu yimaadaan si ay isu arkaan sanad walba. ciyaaraha Somali Week ee Toronto ee 2025 ayaa loogu magac daray Allah u naxariistee Axmed Cabdikariim Mulaayo Cantar Jeenyo oo horey u soo noqday gudoomiyaha ciyaaraha Somali Week iyo madaxdii ururka Today, halka koobka ciyaartooydii hore iyo kuwa cuslaaday loogu magac daray ciyaartooygii hore Axmed Cabbaas ee dalka Mareykanka ku nool. waxaana koobkaasi ku guuleystay kooxda ururka Today ee ka socotay Toronto oo uu macalinku u ahaa Khalid, isagoo kaaliyihiisuna uu ahaa Deeq, gool dhalintuna uu qaaday Burhaan. gudoomiyaha ururka Today Odan Mursal ayaa ugu dambeyntii u mahadceliyay ka soo qaybgalayaasha. aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa dadkii magaalada Toronto isla soo dhaweeyay, dadku soo dhaweeyay, si ay dadku u qaabileen, si ay anaga Today ula shaqeeyeen si nabadgelyada si sharafta badan. aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa hooyooyinka ururka Today iyo dadkii oo dhan. waxaan rajeynayaa insha Allah taala next year waxaan wax ku qurxoon inaan qabano haddii la yiraahdo. martidii gabagabada ciyaaraha ka qayb galay waxaa ka mid ahaa xildhibaano ka tirsan dalkan Kanada ee gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee arrimaha bulshada Cabdicasiis Cusmaan Maxamed oo ka yimid dalkii hooye ee Soomaaliya oo uu weheliyay Dacar oo isku xiray qurbo joogta iyo Soomaaliya, iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Cabdilcasiis Ubax Rooda. sidoo kale waxaa joogay ganacsato qayb laxaad leh ku lahaa ciyaarahan iyo qabsoomidooda oo uu ka mid yahay Bashiir Xasan Xaaji. fadlan si dhow noogu xirnow si aad u hesho warbixino kale. mahadsanidin. Thank you.